shacab weynaha ku dhaqan degmada Buurtile oo muddooyinkan dambe sugayay magacaabista golaha wasiirada Puntland ayaana maanta wax ka weydiinay dareenkooda ma yihiin golaha ay sugayeen sidee bay soo arkaan waa kan gudoomiyaha degmada Buurtile Libaan Xirsi Khaliif oo dareenkiisa ka warbixiyay wasiiradaas oo aan oran karnaa waa wasiiro ku haboon kana bixi kara shaqadaas maadaama aad iyo aad aqoontooda iyo tayadooda iyo tiradooda loo yareeyay waxaan oran karnaa runtii madaxweynuhu arintaas aad buu ugu guuleystay waana wasiiro tayo leh lamana oran karaa waa kow iyo labo runtii waxay noqon karaan kuwa ka soo bixi kara nin walba xilka loo magacaabay iyo sida uu yahay waa niman ka soo bixi kara kana muuqan kara aqoon iyo kartina u leh shaqadaas wasiirnimo ee loo magacaabay dareenkeena ku aadan ka maamul ahaan degmada Buurtile oo ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana uga hambalyeynaa madaxweynaha inuu magaranaysaa dowrkii ugu muhiimsanaa oo talo iyo tusaale iyo qiimeynba uu ku suubiyay wasiirada cusub sida lagu soo xuli lahaa aad baan u soo dhaweynaynaa sidoo kale gudoomiyaha guddiga horumarinta Muxiidiin Xaashi iyo sida uu arko magacaabista golaha wasiirada Puntland waxaan u aragnaa tii Puntland horumarka gaarsiin lahayd tii dalka iyo dadkaba wax u qaban lahayd tii Soomaaliya ka keenin lahayd kaalinta Puntland ay ku leedahay garwadeen u noqon lahayd Soomaaliya inay cagaheeda dib isugu taagto noqoto dawlad federaal oo Soomaali wada matasha si gaar ah waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha ragga xulka oo u soo xushay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ku soo daray xukuumaddiisa gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose oo aan isleeyahay waa nin oday oo culus oo rugcadaan siyaasadeed ah oo ka dhabayn kara awalna isagoo kaligiisa gooni u taagnaa inuu soo celiyo goboladaas haddana aan rajaynayo haddii uu helay dawlad taageerta iyo dadweyne isku xiran iyo xil uu arrintaa ku gaari karo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo ilaahay la kaashanayo uu soo celiyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn maamulaha dugsiga sare ee Buurtile Axmed Dheereeye iyo dareenka bahda waxbarashada Cali Xaaji Warsame iyo wasiir ku-xigeenkiisa Maxamed Cali Faarax labada doctor mas'uuliyiin doctor Cali Xaaji Warsame iyo doctor Maxamed Cali Faarax waxaan filaynaa inay yihiin dadkii aad ugu habboonaa inay waxbarashada Puntland meesha ay joogto ka sii wadaan heer fiican sii gaarsiiyaan sidoo kale aad waxaan soo dhaweynayaa sidoo kale doctorka caafimaadka doctor Enow waxaan leeyahay madaxweyne waxaad magacowday xilliga ku habboonaa iyo dadkii ku habboonaa inay xilka Puntland maanta gubtaan ay dadkana ka saaraan maanta meesha ay joogaan ka soo uga sii socdaan ugu dambeyntiina Dr. Cabdixakiin Dhaashan oo kamid ah dhaqaatiirta ka howlgasha degmada Buurtile ayaa ka warbixiyay dareenkiisa iyo waliba dareenka bahda caafimaadka waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacab weynaha Puntland waxaan leeyahay ku soo dhawaada golaha wasiirada cusub ee Dr. Cabdiweli uu soo magacaabay runtii haddii aniga mas'uuliyiinta caafimaadkan ka mid ahay reer Puntland fikriga ku aadan xagga wasaaradda caafimaadka kale oo aniga aan isku dhownahay Dr. Sadar Eno oo wasiirka caafimaadka noqday Puntland waxaan dhihi karaa waa nin shaqadiisii helay ama shaqadii ku aadaneed loo dhiibay maadaama uu yahay nin aqoon u leh caafimaadka dalkii yaqaan dadkii yaqaan waxa ka jira og insha Allah taala shaqadiisana wuxuu noqon doonaa mid ku guuleysta guleed jaamac maxamed TV-ga caalamiga Somali Channel Buurtile